family awareness ma qabaan dadkan. Family awareness waxa la cancellation family awareness adduunka jiro. dad iyagoo isfahminay isguursanayaan waxaana kamid yani inay been isku sheegaan marka horeeto oo wajiga runta guriga isku leeyaadaan bro ama la guursado gabar kale tan way keeni kartaa sababtoo aniga hadaa gabdhanaana wax kale ma ku kulnaano waa masar badanaan kasoo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin iyo aafooyin yeelo u geystay shacabka Soomaaliyeed haddana burburkaasi dalka ka dhacay muuse saameynan hanaanka iyo kala dambeyntii dawladnimada oo kaliya sidoo kale waxa uu burbur xoog leh u geystay qoysaska guryaha Soomaaliyeed maxaa sababa burburka qoysaska Soomaaliyeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay soo usbaxay sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee guurka ku degdega xiriir ma leedahay arintani qoys burburka ee ku soo badanaya dadyowga iyo shacabka Soomaaliyeed haddaba waxa su'aalahaasi iyo kuwa kale oo badan aan weydiinay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay ugu jawaabeen sida tan salaam baado magaca ku bilaabay waa magacayga waa Raasiya aad u weyn sababay u tahay koos dhalinyarada iyagoo isfahminay isguursanayaan waxaana kamid yani inay been isku sheegaan marka horeeto oo wajiga runta guriga isku leeyaadaan marka hore inay been isku sheegaan yani oo noloshooda runta isku sheegin waxa jira qofka waxyaabo u qarsoon moogtay oo aan soo sheegi karin laakiin wax walba qasab waa moogtay wax mustaqbal adeeyna aan runta isku sheego marka runta iska qariyeen saasa keenaysa qoys burburka yani waxa baa jikar qofka inaad fahantiin oo laakiin runta isku sheegtiin marka horeeto saas isku fahantiin yani noloshiin u noqoto nolol waarto runta ma isku sheegi marka horeete been isku sheegaan kadib wajiga runta isku yimaadeen fahantii taasa keentay nolol dicif u noolaa kar mar laakiin ninka rag haduu ku shaqeynaayo oo wax walba ku huraayo waa la joogaa ma fahantii waxa dar inuu guriga iska jiifo ma fahantii taasna way keeni kartaa oo waxba qabanin caadi waa iska dul qaadanaya wax adduun waa iska imaaneen ma fahantii saas waaye magacayga waxaa la dhahaa Muxiidiin Xuseen Isaaq qoysaska Soomaaliyeed burburkooda waxaa sababi kara arrimo badan inta lagu soo koobi karin laakiin haddii wax ka taabano kamid ah horta waxaa jira lack of economical status waxa la dhaqaale la'aan jirto dadkii looma abuurin dhaqaalo qoyska naftiisa baajeeda u baahan yahay dadkina waxay u badan yihiin dad shaqo la'aan marka horta one factor waxa waaye lack of economy midka labaad waa drugs maxaa yeelay ka soo qaadada bulsho badan oo qoysas leh ayaa isticmaala jaadka oo kale marka dhaqaalihiin uu kala go'ay waaya laga yaabaa jaadka iyo biilki isla markaana gabadhii ay dul qaadan weyso oo tiraa marka ilmeyga ana u shaqaysanay fur adiga taasna waa factor kale factorka kale waxa waaye bad planning qorshe xumo macnaha marka hore qofka asagoo diyaar u ahayn guur oo waxbarasho ku jira oo aan shaqo helin oo mishaar qaadanin uu gabar iska jeclaana gabadh markuu iska jeclaado iyadana kuma xisaabtamayso ninkan hadda waa nin responsible ah oo ku hanan karo kuma xisaabtamayso jaceelkoodii la meesha ka raacayaan tii waxay keenaysaa marka in ay accountability-ga u lumo yani isla xisaabtanka inuu dhumo oo ninkii uu ka soo bixi waayo responsibility-gi gabadhina ay ka soo bixi weyso factorka afraad waxaa waaye waxaa la yidhaahdo qasabka yani waalidka ayaa heshiinaya bas ah labada waalida heshiinaya gabadheydaan ku siinaa wiilkaada iyo si wiilkina dooq ahaan gabadha ma jeclo tusaale ahaan kuwaasna ma raagaya dee guurkooda dad ma aha marka horeba isdoortay ma aha ma maqlaysaa marka adigu ay weydiin kartaa factorka ay leed sabab ma u yahay maxaa waaye dulqaad la'aanta waxaa keenaya ma jiro waxa la yidhaahdo family awareness ma qabaan dadkan family awareness waxa la cancellation family awareness adduunka jiro xafiisyo waxaa furan oo cancellation ah oo gabadha lala taliyo oo ninka lala taliyo oo yani loo soo celiyo nidaam ahaan say u dhaqmi lahaayeen dadkina aqoon buuxda ma leh oo hadda Soomaaliya daa fiirisid aqoon la'aan horta jirto waxaa la rabaa waxa la jiro cilmiga qoyska ma yaqaanaan cilmiga qoyska qofka hadduu baranin family education hadduu garanaynin badanaa iskoorimaadku waa imaana maxaa yeelay dumarku waa lafa laga abuuray oo jaban in loo dulqaato waaye markuu rasuulkeena sallallahu alayhi wuxuu ka wadaa macnaha hadalku ma fiirsadaan ha loo dulqaato waaye marka qofka badanaa weli markuu dhalinyaro yahay abiding ma laha you cannot abide for all what she says mogta marka anyway the cause jibinaya family waxa u badan ani waxaan dhihi lahaa lack of economy